sool waxay eeday arrimo nooca u dhow ayay eeday ummad ka shaqaysanayso qaar kale oo dan laga leeyahay laga sii dulgeliyay ayaa inagu bilaabay musiibooyin ay ka dhamaan weynay ilaa maanta dhaawacyadii inagu yaalaan wasiirka soo jeediyay arrintan saxeexay ee digreetada ku saxeexay ee shirkadda Tawfiiq ku saxeexay arrintaa inuu ka noqdo Tawfiiq oo shicib ahayd oo ganacsato gaadiid leeyahay oo ganacsato Soomaaliland u sinayd inay maanta magac dawlo ay koyto loogu xiro ganacsatada gobolka Awdal ee hogaaminaysa rugta ganacsigu ayaa saaka kulan balaaran iskugu yimiday halkani oo hotel Haldoor ee magaalada Boorama waxaanay ka soo horjeesteen shirkadda gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq oo kooto loogu xirayo gaadiidka rarka dekada Berbera ee Somaliland waxaanay wasiirka ugu baaqeen inuu arrintaasi si degdeg ah uga noqdo isla markaana waxay baaq u direen xukuumadda Somaliland ee uu garwadeenka ka yahay mudane Cabdiraxmaan Ciro waxaanay hadaladoodu u dhignaayeen sidan kulanka waxay isugu yimid ganacsatada gobolka Awdal waxaana isu keenay arrintan tan gaadiidka ee magaranaysa la soo saaray warka laga soo saaray iskaashatada la yiraahdo Tawfiiq marka kulli fikriyan ama aqliyan waxaan qabnaa in halkan cadeysano ayaanu doonaynaa marka waxa weeye horta iskaashatadu ma xuma laakiin iskaashatada Tawfiiq gaadiidka aan leenahay badankoodu way ku jireen si xorriyadeyna ugu jireen xilligii qabadinadaana la galay ee hore umaanu gelin dabadeed markii isqabqabsi iyo dacwad iyo kulli ay timid gobolka Awdal waxaanu samaynay waan idhi war shirkadii lama heshiinaynay mid aan samaysano marka waxaanu samaysanay shirkad kale oo ka samaysan gobolka Awdal oo ilaa jambarkayga geynay dabadeedna waxaan idhi hadday Somaliland monopoly keenayso gobol walba sidiisa haw taagnaado loo sharci garayo taar way nuu sheegi waxaana noo kalifay wasiirkan gaadiidka ee warqadda soo saaray marka haddii ay monopoly ahayn talahaan annagu gobolka Awdal waxaan soo jeedinaynaa dee gobolada Somaliland waa lixda haddii kooto wax lagu xidhayo ganacsi walba waa diyaar lacag yar oo kooto fudud inuu iska helo diyaar baan u nahay laakiin mid kaliya in loo xidho uma aragna macquul ama xukunkii dawliga ee dadka ka dhaxeeyay maanta kulanka yagan ganacsatada gobolka Awdal intooda badan u dhan tahay waxa uu daaran yahay shirkadda cusub ee kooto loogu xirayo gaadiidkii Somaliland dhammaan ka ganacsanayay ee hal shirkad baa maamulaysa leeyahay horeba way u jirtay oo shalay toole mar hadlayeen Tawfiiq 1998 buu nasiyay yiraahdeen ninka la yiraahdo Allah u naxariistay Ibrahim Ahmed Ibrahim Cigaal systemkooguna cidii gashina way galaysay cidii aan doonayna ma galaynin waayo waxa xukumayay oo magaranaysa ay magaranaysa meesha yaalay ganacsigeenu xorta ah ee uu ninkasto u madax banaan yahay waxayse inuu ku ganacsado hadduu baabuur leeyahay uu baabuurkiisa ku ganacsado alaabtiisa uu ku rarto dadka kale uu qaado taasaa muhiimadeedu ahayd ganacsi xor aynu qaadanay ganacsiga xorkeena wuxuu ka bilaabmaa gabadha maqaaxida baxayda ku shidaysa dariiqa ilaa ka wax soo dajinayay cashuur bay dawladdu ku leedahay sidaasuu ganacsigeenu xor ku noqday qof kasta wixiisa u madax banaan yahay maanta waxaa soo baxay in maxay Tawfiiq oo shicib ahayd oo ganacsato gaadiid leeyahay oo ganacsato Somaliland u sinayd inay maanta magac dawlo ay koyto loogu xiro oo la yiraahdo baabuur kasta waxayda wuxuu galayaa halkaa kuyugaasuu galayaa ku dhaqaaqayo oo berberama uga soo dhaqaaqo dhexda fadhiisanaya iyo ku meesha loogu tagaya waxaa la wada galayaa kuyugaasina ma anfacayo maxay ummadda Somaliland ee qaatay ganacsiga xorta iyo xalaasha
marka halka waxaan ugu boorinaynaa annagoon cid maxay ahayd duraynin cid aflagaadaynaynin in loo soo noqdo ganacsiga xorta iyo xalaasha ahaa oo dowladda imika hogaaminaysa waddanka ee wadajir iyo waxqabad wadajirkeedii waa ummadda oo isku tashanaysa ummadda oo wadajirta inay wax qabsato weeyaan ummadda oo gaargaari inay wax kala xidhato maaha markaa wadajirkii ay ballan qaaday waa inay magaranaysaa dadkii ay sidii wadajirka ay u sintaa waa sidii wadajirkii waa inay ugu xeer qaadaa waa inay ugu xaq soortaa shirkadda tawfiiq dhowaan la wareegtay soo saartay inay baabuuradii dalka oo dhan iyadoo ay maamulayso taana sidii hore loo sheegay waxay noqonaysaa mashruuc hor leh oo dhibaatadiisa wata oo dalka ku soo kordhay waxay noqonaysaa mid ganacsigeennii xorta ahaa oo balaagkeennu iyo Kenya ka dowladduba uu yahay in aan dalkeenna ku soo dhaweyno ganacsatada dunida iyo dalalka jaarka dee waxaan ku soo dhaweynaaba ma jiro haddii ay meeshiiba koonto ay ku xidhan tahay oo isku socodka oo ku xidhaya shirkad oo qof wixiisa raran karo oo meeshuu doono la tegi kara una jirin dee taasi nidaam xora oo ganacsi oo furfuran kuma samayn karayno sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa wasiirka soo jeediyey arrintan saxeexay ee digriitada ku saxeexay ee shirkadda tawfiiq ku saxeexay arrintaa inuu ka noqdo dalkeenu wuxuu ku hana qaaday xorriyadda ganacsiga ayuu ku hana qaaday waana ku liibaanay runtii waayo xorriyadda ganacsigu waxyaabo badan oo faa'iido ah ayay keentaa haddaan inta gaadiidka ka hadlo waxyaabaha faa'iidada leh keento waxaa ka mid ah tartanku wuxuu keenaa inuu dee qiimo dhimis sameeyo oo iminka sidaan xasuusannahay nooliga berbera iyo gobollada kale u kala baxay aad buu hooseeyaa taana waxaa keentay tartankii xorriyadda ahaa ayaa keentay tan labaad waxay kordhisaa tayada ayay kordhisaa oo iminka gaadiidka gobollada u baxay dee nin walba wuxuu ku dadaalayaa inuu tayadiisa hagaajiyo hadduu gaadiidka tayadiisu ay hagaagi weydo dee suuqa uu ka baxayaayo shaqaysan kari maayo laakiin haddii wixii koonto laga dhigo waxaasoo dhani meesha uu ka baxayaa oo qiimuhuna isbeddel buu keeni doonaa tayada gaadiidku leeyihiin yacni qofkii halka loo qaaday waqti fiican loogu geynayo ama la hagaajinayo la macaamilkii dadweynaha waxaasoo dhan meesha uu ka baxayaa intaa laga hadlay weeyaan mawduuc waa gaadiidka iskaashatada wasiirku ay sameeyey weeyi dhinaca haddii wadajir iyo wax wada qabsi iyaan ku soo noolayn Somaliland oo wax ku qabsan jirtay iskaashatooyinna way jiraan oo gobol walba way ka jiraan laakiinse taa wadajir iyo wada qabsi anan ka mid ahayn wasiirka dhinaca ka raran taasaanu ka hadlaynaa waxaanan u sheegaynaa madaxweynaha Somaliland inuu arrinkaa soo farageliyo hadalna waa inta la yidhi hadal hadhayna ma jiro inta ganacsatadii ugu horeysa ay tidhi unbu hadalkaasi ku dhan yahay arrintaynu iskugu nimi waa arrin runtii Somaliland ku cusub haddaan meesheeda lagu qabanina hawl badan inagu soo kordhin karta Somaliland waxay soo jirtay taariikh fiican oo lagu mudakar lagu noqdo wax alla waxa dhib keenaya iyo waxa aan dhib keenayn intaba waxaan u haysanay dad ku ciraystay xallinta khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada inaynu maqaam sare ka gaadhnay laakiin maanta waxa nagu cusub dhacdo aanan waqtigeygii joogin ayaa nagu cusub Somaliland hadda may dhalan soddonkaa iyo dhowrkaa sane ay socotay ganacsi baa jiray dekadaasi cid walba way ka ganacsanaysay Somaliland
dad Somaliland dadan Somaliland ahayn intaba wadakada u furan caalamka dhan ee inta leega la doonayay in adduunka oo dhan ugu faa'iideeyno inaguna ka faa'iideysano waxa khasabka la yiraahdo waxaad ogtihiin dhibaatooyin badan baa inaga gaaray sool waxay eeday arrimo nooca u dhow ayay eeday ummad iska shaqaysanayso qaar kale oo dan laga leeyahay laga sii dulgeliyay ayaa inagu bilaabay musiibooyin ay ka dhamaan weynay ilaa maanta dhaawacyadeedii inagu yaalaan marka anigu waxaan ku talin lahaa wadankan waxa soo hogaamin jiray baayac mushtari hadday noqoto rugta ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga muddo 20 sano ku dhow haddaanay kama badnayn buu ka soo talinayay arrimahan isaga iyo wasiirada uu la kaashanaya wasiiradii ganacsigu ugu horeeyeen wax badan bay ka soo badbaadiyeen ummadan waa ruucda ku soo jiray xalinta khilaafaadka intaasoo sanana ku soo dhex jiray maanta se waxa muuqata in aagag badani ay ku furmeen oo weliba qaar ay xildhibaano shaar dowladeed u soo xidhay ama xasaanad u soo qaatay ama dagaalku uu ka cuslaaday intii baayac mushtarigu ku koobnaa baayac mushtari keliya maaha arrintani way wajiye badatay marka waxaan leenahay wax shirkadiba haddii la yidhaahdo shirkad keliya khasab ku qaadanaysa waxa dadkani waa bini aadan dad la khasbi kara maaha mushkilado fara badanna way ka soo muuqan doonaan meesha ummadda iyaan la khasbin cidna cid iyaan loo adoominin nin kasta xoolihiisa isagaa leh meeshuu doonuu marinayaa cashuurta dowladda oo keliya nagu waajiba inaan bixino wax kale oo ku waajiba dowladdana waxaa ku waajiba inay xoolaha iyagaa ilaaliso hadday dariiq tahay hadday booliis tahay iyo hadday wax alla wixii kale aan uga baahanay waxaan iminka socdoo dhammi aakhirkana waxay dhib ku keenayaan waa shacabka masaakiinta wax kasta oo ku kordha baayac mushtariga oo dhibihi iyaga keliya kuma koobnaanayaan waxay gaaraysaa cid kasta oo maciishadan dadkan masaakiinta bay gaaraysaa qof maamulada waxay isku bedelaan nolosha dadkan masaakiintaana wax fiican ka qaban oo maciishada u jebin oo ka fikiri sidii ay noloshoodu uga fiicnaan lahayd tii hore ay soo mareen laakiin inaad uga sii dartaan maaha waxaan leeyahay xukuumadda waxaan ku boorinayaa ha loo daayo jambarku siduu wax u maamuli jiray oo u maarayn jiray faragelinta faraha badan lee dowladaysanna ha laga daayo waddankana ha loo wada damqado waxa weeye haddaad wasiir tahay shalaa timi kumay intaasoo sannadood baa hortaa laga soo shaqaynayay dadkii ka soo shaqaynayay may garan waayin waxaanaad iminka adigu garatay boqolaal shahaadado iyo ku soo qaatay injineernima kaa wada horreeyey inaad ummaddii kaa horraysay yaraysata maaha laakiin waxay u turayeen ummadda waxay u turayeen dadkan isku wada dhex nool ee ilaahay iska wada dhex arsaaqay tawfiiq weligeed buu way jirtay waxba yaanay dowladda gelinayna awalba way shaqaysanaysay siday ummadda ula shaqaysanayso ha ula shaqaysato cadaawad dhexdeena ah haddaynu nahay baayac mushtari ama tawfiiq ah waa shirkad kalaba ahawe cadaawad dhexdeena iyaan laynoo soo rayn oo aan fooda laysku keengelinin haddiise ay arrintu intaa dhaafto dee waa sidii odayaashii hore sheegeen ma jeclin in dadku sii kala fogaado in laysku soo wada dhowaado oo meel keliya la wada maro oo dadku isku wada mid noqdaan maa jecla haddiise laga tegi waayo dee halkan waxaa ka jira iskaashatooyin saylac way ka jiraan magaalo kastaba inay leedahay baa laga yaabaa taasina waxay furfuraysaa isku xidhnaanteenna iyo isku dhex jirkeenna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idin leeyahay arrimaha noocaasee khatarta keeni kara bulsho aad iyo aad ha looga fiirsado waana mahadsantihiin warbaahinta Cishqi TV Boorama